ayaa ka sheekeynaysa xaaladda ay soo wajahday gabadheeda. 4 maalmood reebtaan soo qaadnay gaari ma soo raacin waa uu la ahaayay marka waa la kufsaday gabadha hadoo alla ku idmo ur 8 bilood ee waa aheeday intaas iyo inta kala dhaxla way iska xanuunsatay siiba loo kufsaday caafimaad way weyday ayaana kama soo wareegin dhiig bax iyo balaaya ku soo kacay tiraba ku dhacday way naga dhimatay Allah u naxariisto meedkiina banaanka noo yaala hadda meel uma hayno gurina ma haysana ana kaaba saxarir iyo sila xateeda iyo xanta ku nooleene waxaan adkanaynaa hadee muslim aan nahay Soomaali aan nahay cid alla idii Soomaali ah gargaar baan u baahanahay masaakiin aan nahay meel aan aadna ma hayno waxba fara kuma hayno meedkiya banaanka iyo yaala in laga soo taliyo ayaan doonayaa maamulka degmada si degdeg in la iga soo gaaro banaan oo meedkayga iyo yaala asla soconay gabdho badan baan heenay aan isla jirnay marka waa saasa wax u dhaceen jilib marka magaalada markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaa horaantii bishii aanu soo dhaafnay la wareegay ciidamada xooga iyadoona mararka qaar ay al-shabaab madaafiic ku soo garaacaan gudaha degmada taa oo sababtay in dadka ku nool inta badan ba ay isaga barakaceen